بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. الآية. موضوعنا caawa in sha allahu axbaabii fillaah waxaan wax yar isku xusuusi doonaa fadlul cashri alawaakhir min ramadaan, 10ka bisha ramadaan ugu dambayda wanaagga dheeraadka ah oo nabigeennu calayhi salaatu wasalaam oo noogu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. bisha ramadaan 10ka ugu dambayda nabigeennu calayhi salaatu wasalaam si gooniyaho walaalayaal farta ugu fiiqay. waxaa la yidhi bishaan 10ka ugu dambayda nabigeennu markii la gaaro: idaa dakhala alcashru alawaakhir min ramadaan shadda mi'zarah wa axyaa leylah wa ayqada ahlah. wuxuu nabigeennu ahay calayhi salaatu wasalaam 10ka bishan ugu dambayda marka la gaaro dadaal uusan horay bisha u dadaali jirin ayuu dadaali jiray. wuxuu badi jiray nabigu qur'aan akhriska, wuxuu badi jiray ducada, wuxuu badi jiray soo jeedka. wuxuu nabigu ahaa calayhi salaatu wasalaam habeenkaa mid nooleeya, allahu calayhi wasalam habeenkaa mid nooleeya. wuxuu nabigu ahaa ahalkiisa sala allahu calayhi wasalam mid soo baraarujiya, ahalkiisa ayuu baraarujin jiray, habeenkaabuu noolayn jiray, daaco ayuu ku noolayn jiray sala allahu calayhi wasalam. waa khayru khalqillaah. xigmadda ku jidha in la nooleeyo 10kan dambe oo dadaalka la sii badiyo, oo ducada la sii lamanlaabo, qur'aan akhriska la sii badiyo, soo jeedka la sii badiyana waxaa ku jira habeenkii barakada badnaa oo laylatulqadriga ahaa. nabigeennu calayhi salaatu wasalaam si gooni ah wuxuu ugu farfiiqay qofkii raadinaya 10ka bisha ramadaan ugu dambayda ha ka raadiyo. wuxuu nabigu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam: taxarrow laylata alqadri fi alcashri alawaakhiri min ramadaan. laylatulqadriga aada ugu dadaala oo badiya ictikaafka, oo badiya khayraadka, oo badiya soo jeedka, oo badiya daacada iyo tahajudka iyo salaada inta la hurdo kabacdi loo soo kaco. layladaa aada u raadiya 10ka dambe oo ramadaanka aada uga raadiya. layladaa waxaa la yidhi ramadaankoo dhan waxaa dhici kara hadda horay qaybtii loo soo dhaafay inay ku jirtay, waxaa dhici karta inta noo laaban inay ku jirto, waxaa dhici karta caawaba inay ku jirtaba. leanna caawo kaleeto 23 xisaab ahaan in lagu wado ayaa meelaha qaar macnaha waxa weeye qayb ahaan la xisaab ahaan ay ku socotaa. 23dana waxay ku jirtaa habeenada aad ba looga raadiyo oo nabigeennu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi: ku dadaala habeenadaa tirada isdheerka ah oo 21da bisha, 23da bisha, 25ta bisha, 27da bisha ramadaan iyo 29ka tirada isdheerkao 10ka dambe ka raadiyuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. 10ka dambe laylatulqadarka ka raadiya, gaar ahaan tirada isdheer haddana aada uga raadiya. habeenkii iyo maalinkii isku sibaa loo dadaalaa. macnuhu ma aha habeenkiina khayr in la sameeyo. laylatulqadrigu maalinna waa ku jiri karaa, habeenkana waa ku jiri karaa. waa saacad ilaahay haddii uu ku waafajiyo waxa weeye daacada aad la timaado 1000 bilood haddii aad cibaadaysanayso 80 iyo waxa weeye iyo 3 sano iyo 4 bilood haddii aad cibaadaysanayso halkaa habeen inta ilaahay ku siiyaa ka badnaanaysa looga jeeda. 1000 bilood waxaad ka heli laheed oon cumrigeennuba gaarayn ayaa ka badan habeenkaa laga helaa. habeenkaasaa wuxuu ku jiraa sida badan bishaan 10ka maalmood oo ugu dambaysa.
nabigeenu marka wuxuu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam tobanka dambe ha la dadaalo waana dadaali jiray nabigu ficlan ahalkiisa waa baraarujin jiray in ay dadaalaan ayuu nabigeenu ku baraarujinayay sala allahu calayhi wasalam wuxuu badinaya daacada ilaahay habeenkaasuu noolaynayay nabigeenu ictikaaf ayuu ku noolaynayey salaatuleyl buu ku noolaynayey macnuhu ma aha haddii aadan salaad tukanin in aadan leylada helayn loogama jeedo haddii aad cilmiga akhrisanayso oo daacada ilaahay ku dhex jirto on baa la doonayaa cilmiga haddii aad baranayso waa leyladii khayrka adoo ku jira inay ku waafaqdo on baa la rabaa adigoo toobakeenkii iyo istikfaartii akhrisanaya adigoo qur-aankii akhrinaya adigoo salaadii tukanaya adigoo salaatuleylkii tukanaya adigoo taraawiixdii tukanaya khayrka in oon la badiyo habeenadaa iyo maalmahooda oo daacada lagu sii dadaalo intii awal la samay jiray laga sii badiyo ayuu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam nagu tacliiminayaa sala allahu calayhi wasalam si khayrkaa ilaahay noo waafajiyo nabigeenna sala allahu calayhi wasalam tobankaa dambeeto maadaama uu ku dadaali jiray annagana waxaa nala ka doonayaa in aan dadaalno xadiis kale oo imaamu tirmidi warinayo wuxuu yidhi kaana yejtahidu fi alcashri alawaakhir maa laa yejtahidu fii kayriha nabigeennu wuxuu dadaali jiray tobanka bisha ramadaan ugu dambayda dadaal inta kale uusan dadaalin ayuu nabigu dadaali jiray sala allahu calayhi wasalam daacada inta kale daaco iyo cibaado uusan samaynin ayuu tobanka dambe nabigeennu samay jiray nabigeenna marka calayhi salaatu wasalaam leylatulqadriga in ay u badan tahay tobanka dambe ayuu aad farta ugu fiiqay sala allahu calayhi wasalam ku dadaala tobanka dambe leylatulqadarka inaad ka dalabtaan buu yidhi weliba tirada isdheer ka raadiyo bishu habeenada ay marayso xisaabta kala dheer waa inaad aad uga sii raadisaan nabigu sidaasuu nagu barbaariyey sala allahu calayhi wasalam haddaba waxa weeye tobankaa dambeeto daacada waa in la badiyo oo khayrka wax yar baa ramadaan ka haray waxay khasaara u sugnaatay qofkii ramadaanka hore aan u soo soomin qofkii xaaraamta cuni jiray qofkii xaaraamku macnaha waxa weeye ku afurin jiray qofka carada ilaahay ku dhacday qofka maalinta qiyaamo ilaahay asagoon waxba u oolin lasoo hortaajinayo kaas waxa weeye fayaal lahaa min khasaara waxay nicmo oo dhami u sugnaatay ramadaanka qofka ilaahay waxa weeye oo waafajiyey oo khayrkiisii badnay soo helay hadda ramadaankana waxaa la yidhaahdaa waa bishii aanu hadda ka hor fadligeeda ka soo sheekaynay oo nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wanaaggeeda noo sheegay oo qofka sooma ilaa bisha kale laga gaaro dembigeeda waa loo dhaafayaa habeen baa nabigeennu waxaa la yidhi maalin mimbarka ayuu sidaa u fuulay markaasuu aamiin yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam 3 mar buu aamiin yidhi waa la su'aalo aamiinta noo sheeg baa la yidhi wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam malakul jibriil baa ii yimid wuxuu yidhi nabi muxamedow calayhi salaatu wasalaam qofkii bishaan ramadaan la kulma oo ay macno darro uga fakato oo markaa ramadaanka dadka la xoraynayo oo daacada ilaahay iyo dembi dhaafka gaara ka mid noqon waaya ilaahay ha fageeyo ilaahay ha dulleeyo ilaahay cadaabtiisa iyo macnaha ha ku fageeyo raxmaddiisa ha ka fageeyo ee nabi muxamedow aamiin dheh markaasa aniguna aamiin idhi buu nabigu calayhi salaatu wasalaam marka qofkaa waxa weeye ramadaanka macno darro ku dhaafay oo sidaasoo kaleeto haddana tobankan dambe iskaga dheela ramadaankii ku dheela xaaraamta iska cunayey habaar baaba ku dhacayoo nabi moxamed baa aamiin yidhi malaku jibriilna wuu habaaray ilaahay agtiisana wax u yaalla way yar yihiinoo carada ilaah baa ku dhacaysa le'anna ramadaankaa intaasoo faa'iidaa leh oo intaa aragtay buu xikmada lagu sheegay macno darro qofka ku lumiyey waa khasaaray laakiin weli albaab baa u furan baabkii toobada ayaa furan haddaad ilaahay caawa u soo laabato oo xitaa qofkii aan soomi jirin ilaahay u toobo keeno oo qurunka uu iska dhaafo oo meelaha fisqiga uu tegi jiray uu ka toobo keeno oo bisha ramadaan uu ku dadaalo bisha ramadaan sidaad ilaahay u caabudayso bil walba sidaa ilaahay in loo caabudaa la doonayaa ramadaanku hadduu dhammaado cilmiga way iska dhaafaynaa salaadda waanu iska dhaafaynaa ma aha macnaheedu waa in sida hadda loo tukaday bil walba in salaada ilaahay waqti walba la ilaaliyo waxaa la yidhaahdaa rabbigii ramadaanka aad uga baqaysay rabbu baaqii shuhuur bil walba isaga on baa kuu rabbiya
nabi moxamed waxaa lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin ilaa aad ka dhimato ilaahay ku abuurtay caabud qofku ilaa uu ka dhintaa la rabaa ilaahay inuu caabudo ma aha macnaheedu inuu yidhaahdo anigu ramadaankii waa macnaha la imid ciiddii waxbaan ka soo tukaday dadkii waa isku ekeeyey waxa weeye waa inaan ka qayb galaa ciidaha iyo ramadaanka kabacdina halkiisii oo ku laabto oo laga waayo meeshii khayrka oo laga waayo masaajidkii oo laga waayo salaadii oo laga waayo cibaadadii taasi ma ahan waxa weeye arrintaadu maqbuul ma aha ilaahay addoon au aqbalay haddii aad tahay sida hadda aad u toosan tahay weligaa u toosnaaw kuwa weligood u toosnaada ilaahay ha nagu daro marka nabigeennu calayhi salaatu wasalaam 10 bisha ugu dambayda aad buu nabigeennu u ammaanay aad buu yidhi ha loo dadaalo daacada ilaahay baa lagu dadaalaa haddii aad ramadaanka 10 ugu dambayda waxaa la yidhi cishaha aad tukato oo maqribka aad tukato ood cishaha jamaaco iyo ku tukato oo taraawiixdii tukato oo subaxana tukato waaba macnahan habeenkii waad noolaysay baa la yidhaahdaa habeenka badankii haddaad soo jeedana waa sidii fiicneed haddii habeenkoo dhan aad soo wada jeedana hadda taa yaaba gaari karaba marka habeenkaa in la nooleeyo oo habeennada 10 ugu dambayda la badiyo khayrka la badiyo ducada la badiyo sadaqada la badiyo qur'aan akhriska iyo khayraadka lasii lama laabo oo ramadaanka khayr lagu sagootiyo ayaannu insha allahu isxusuusinaynaa leanna waa habeennadaa nabigeennu calayhi salaatu wasalaam aad noogu ammaanay midda kale waxa weeye waxaa ku jira leyladii barakada badneed leyladan aad u barakada badan waa leyladii la soo dejiyey qur'aanka habeen laylatulqadriya baa la soo dejiyey ilaahay baa noogu sheegay qur'aanka kariimka ah innaa anzalnaahu fii leylati alqadri qur'aanka waxaan soo dejinnay buu ilaahay yidhi laylatulqadri baa la soo dejiyey qur'aanka oo dhammaystiran habeen laylatulqadri baa la soo dejiyey guri la yidhaha baytulciza oo 7 samo midda ugu sokayda ku dhex yaal oo gurigii sharafta la yidhaahdo ayaa qur-aanka la yskugu keenay habeen walba 23 sano oo nabigeennu ummadda oo waxyi ku soo degoonayey oo dadka oo nabigu xaqa barayey waxaa la yidhaha gurigaas ayaa hadba qayb laga soo qaadin jiray hadba qayb baa laga soo qaadaa hadba qayb baa laga soo qaadaa hadba qayb baa laga soo qaadaa malagga uu ka soo qaadayey nabigaa loo keenayay calayhi salaatu wasalaam 13 sano makuu joogay 10 sanona madiinuu joogay waa 23 sano oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka ou calayhi salaatu wasalaam waxyiga iyo khayrka ku soo degoonayey oo ummadda uu dacwada u faafinayey meeshaasaa laga soo qaadqaadi jiray leyladaas marka waa leylo barakaysan habeenkii sharafta ayaa la yidhaahdaa laylatulqadriga 10 bisha ugu dambayda ayaana aad loogu sii tilmaamay waxay ka fadli badan tahu ilaahay yidhi wamaa adraaka maa laylatulqadri laylatulqadri khayrun min 1000 shahrin buu ilaahay yidhi waxay ka fadli badan tahay 1000 bilood oon leyladaasu aysan ku jirin habeenkaas uusan ku dhex jirin daacadii ilaahay ku waafajiyo ayaa ka fadli badan oo ka khayr badan oo ka ajir badan oo ka thawaab badan waxa weeye halkaa habeen wixii rabbi ku waafajiyo baa intaas waxa weeye kasii fadli badan malaa'igta ilaahay baa soo degoota waruuxu tanazzalu almalaa'ikatu waruuxu malakul jibriil baa soo degooda fiiha habeenka dhexdiisa malaa'igta ilaahay baa soo degoota waa malaa'igta sidratul muntaha degan ama waa kuwa kaleeto waxa malaa'igtaas baa soo degoota baa la yidhi habeenkaas bay soo degoodaan biidni rabbihim idanka ilaah iyo amarka ilaah bay la soo degoodaan idanka ilaah bay ku soo degoodaan min kulli amrin amar walba oo ilaa sanadkan kiisa kale laga gaaro wixii dhici lahaa iyo kulli ay la soo degoonayaan habeenkaas salaamun hiya xataa madlaci alfajr ilaa qorraxdu ka soo dhalato waa habeen nabadgelyo ah baa la yidhi malaa'igtii baa macnaha waxa weeye soo degoonaysa dhulkay imaanayaan dadka ayay marka soo salaamayaan guri walba oo dadka mu'miniinta guryahooda ka mid a ayay soo marayaan falaa yadacuuna baytan fiihi mu'minun walaa mu'minatun ilaa dakhaluuhu wa qaaluu yaa mu'min ow yaa mu'mina assalaamu yuqri'uka assalaam saasay leeyihiin baa la yidhi guri walbay soo marayaan oo qof mu'minuhu degan yahay ama gabar mu'minada ama nin mu'mina markaasi waxay odhanayaan
yaa mu'min ninkaan mu'minka ahow yaa mu'mina gabadhaan mu'minada ahey assalaamu ilaaha salaamka ah oo nabadgelyada u saaxiibka ah yuqri'uka salaam ilaah baa ku soo salaamayey salaamun hiya xataa marka waa habeen nuuca ah qofkii marka habeenkaa istaagga iyo khayrka iyo daacada ilaah ku nooleeya waa liibaanaya walaalayaal habeenkaa marka waa in la nooleeyo oo daacada ilaahay iyo salaatuleylka iyo khayrka lagu nooleeyo nabigeenna waxaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam duco la ducaysto iyo tuugmo ilaahay la tuugo midee ugu aqbal badan markaasuu wuxuu yidhi gelinka dambe ducada ilaahay laga baryo iyo salaadaha marka laga baxo ilaahay tuugmada la tuugo oo la baryo baa ugu fiican buu nabigeennu calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeye habeenadaasoo kaleeto waxaa lagu nooleeyaa daacada ilaahay nabigeennu calayhi salaatu wasalaam tahajud iyo khayr buu ku noolay jiray salaaduu habeen u istaagay baa la yidhi nabigeennu salaatuleyl tahajudka waxaa la yidhaha salaada loo soo kaco markii la hurdo ka bacdi markaasuu nabigu duco bilaabay wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam allaahuma laka alxamdu anta qayimu asamaawaati waalard waman fiihinna ilaahayow midka mahad u sugnaatay baa tahay samaawaadka midka maamula baa tahay dhulka midka maamula baa tahay iyo inta ku jidha walaka alxamdu mahad oo dhan baa kuu sugnaatay laka mulku samaawaati waalardi waman fiihinna samaawaadka iyo dhulka iyo waxa ku dhex jira adigaa milkiya walaka alxamdu mahad oo dhan adig kuu sugnaatay anta nuuru samaawaati waalardi waman fiihinna waxaa tahay samaawaadka iyo dhulka iyo waxa ku jira allaha nuuriya walaka alxamdu mahad baa kuu sugnaatay anta alxaqu wa wacduka alxaqu wa liqaa'uka xaqun ilaahayow waxaa tahay midka xaqa ah yaboohaagu waa run la kulankaagu waa run wa qowluka xaqun hadalkaagu waa run waaljannatu xaqun jannadu waa run wannaaru xaqun naartu waa run wannabiyuuna xaqun nabiyaalka ilaahay waa run wa muxammadun xaqun nabi muxamed fiiri isagaa isqiraya nabi muxamedna waa xaq waasaacatu xaqun saacadda qiyaamaduna waa xaq allaahuma laka aslamtu ilaahu adaan kuu hoggaansamay wa bika aamantu ilaahu adaan ku rumeeyey wa calayka tawakaltu ilaahu adaan ku tala saartay wa ilayka anabtu ilaahu adaan kuu soo laabtay wa bika khaasamtu ilaahu adaan kugu dooday wa ilayka xaakamtu ilaahu adaan kuu xuguntamay fakfir lii maa qadamtu ou nabigu yidhi waa dembi dhaaf u ilahay weydiisanayaa dembi oo dhanna nabigu ma lahayn bal fiiri daaco iyo soo jeed iyo salaatuleyl buu nabigu ku noolaynayaa ilaahuw dembi dhaaf baan ku weydiistay dembigii hadda kahor iga dhacay oo dhan ilaahu ii dhaaf wamaa akhartu dembiga aan gadaal mariyey oo hadda ka bacdi iga dhici doona ilaahu iga dhaaf wamaa asrartu wixii aan siraystay ilaahu iga dhaaf wamaa aclantu waxaan muujiyey ilaahu iga dhaaf anta almuqadimu ilaaha horeeyabaad qofka hormar wuxuu doono hormariyabaa tahay wa anta almu'akhiru ama midka horreeyabaa tahay midka dambeeyana waa tahay laa ilaaha ilaa anta qofaan ilaahan adiga ahaynu ma jiro walaa xawla walaa quwata ilaa billah nabigeenna marka waxa weeye calayhi salaatu wasalaam markuu u istaago salaatuleylka iyo tahajudka duco iyo alla tuug buu la imaan jiray marka alla tuugga ayaa habeenadanka lagu nooleeyaa ilaahay baa gacmaha loo taagtaa salaada ayaa loo istaagaa sujuudda ayaa lagu daahaa nabigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam addoonku markuu ilaahay ugu dhow yahay waa markuu sujuudda ku jiro ayuu yidhi ee markaa oo kaleeto ducada badiya sujuudda markaad ku jirtiin toobakeenka iyo ducada ha la badiyo faqaminun an yustajaaba lakum waxaa hubaala in laydin aqbali doono ou yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam haddii markii sujuudda aad ku jidho ducada aad badiso waa xaqiiqa buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam in lagu aqbali doono habeen buu waxaa la yidhi nabigeennu hurdo ka soo kacay waa cadaysayda nabigeennu markuu soo kacay buu cadaysaday waa weese qaatay nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu akhriyey aayadaha ugu dambeeya suuratulbaqara ee waxaan rabaa suuratu aali cimraan aayadaha ugu dambeeya inna fii khalqi asamaawaati waalardi waاkhtilaafi leyli waannahaari ilaa aayadahaas ayuu nabigu akhriyey calayhi salaatu wasalaam aayadahaasuu nabigu akhriyey aayadaha markii nabigeennu uu akhriyey calayhi salaatu wasalaam aayadahaas buu akhriyey suuraddii buu dhammaystiray markuu dhammeeyey ayuu nabigu salaad u istaagay salaatuleyl ah 2 ragcuu tukaday istaaggiibuu aad ugu daahay rukuucdiibuu nabigu ku daahay sujuuddiibuu nabigu ku daahay marka uu sujuudda iyo ku jiro waa ducaysanayo wuxuu lahay allaahuma ajcal fii qalbii nuuran
وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا بو نبي الله عليه الصلاة والسلام بمعنى إله النور ضمانت إيقادك وعرفك النور إيال لقاها النور إيال أركتيد النور إيقادك كركيد النور إيقادك هوستيد النور مدقتيد النور بدحتيد النور هرتيد النور قدالكيد النور نفتيد النور نور كان إله إيويني بو نبي عليه الصلاة والسلام نبي قد النور بو بقاها صعدة صلى الله عليه وسلم مركاسو إلهي وحو سؤالنا إياه نور بو سؤالنا إياه waxaad ogtihiin nabigeenu calayhi salaatu wasalaam alla tuuga iyo salaatuleylka ramadaan kale ah iyo 10kiisa dambe ma uusan wadi jirin mar walba ayuu nabigeenu suubani sallallahu calayhi wasallam ilaah tuugida iyo salaatuleylka iyo tahajjudka waqti walba uu nabigeenu ku jiri jiray sallallahu calayhi wasallam waxa la yiri nabigeenu salaatuleylka markuu u istaago wuxuu gaari jiray ilaa ay gomadihiisu jawraraan oo dildilaacaan habeen bay waxay ku tiri ummuna Aisha radiyallahu anha nabiga ilaahay ba ku dambi dhaafay dambi oo dhanba waaba laga mayraye dibkaan maxaad isku kalifaysaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri afala akunu abdan shakuran hadii ilaahay dambiga iga dhaafay miyaanan noqonaynin adoon ilaahay u shukr celiya oo ilaahay u tooba keena oo badiya waxa weeye shukriga ilaahay soo inaan noqdo maahan buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam marka walaalayaal habeenku maalinka waa ka fiican yahay daacada maalinkii waxa laga yaabaa adduunyo inay ku mashquulido laakiin habeenkii kaliga haddaad meel mugdiya fariisato laba ragco u istaagto hal lagu maqlo hal lagu arko iyadoon ka ahayn ood gacmaha ilaahay u taagato ood ilaahay xusuusato ood awoodda ilaahay xusuusato oo qabriga xusuusato ood ilaahay cabsidiisa la ilimaydo wuxuu ku jiraa qofka ilaahay dartii ooyin uga timaada oo waxa weeye dhibic ay indhihiisa ilintaas uga soo dhibicdo cabsi ilaahay ay uga soo dhibicdo naarta ilaahay arkin maayo wuxuuna ku jiraa qolada la harinayo carshiga raxmaanka maalinta qiyaamo waxa ku jira habeenka habeenka saacatul ijaaba ah oo qofku hadii uu waafaqo asagoo ilaahay ka baryaya shay khayr aakhiro ama adduunyo ilaahay uu ka aqbalayo marka habeenka saacatul ijaaba ku jira weliba gelinka dambe waa waqtiga ilaahay naadiyo ana almaliku man dha alladhi yad'uuni faastajiiba lah man dha alladhi yas'aluni fa'u'diyah man dha alladhi yastaghfiru li fa'aghfir lah fala yazalu kadhalika hatta yudhi'a al-fajr hadith oo warinayo saxiixu muslimka nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri gelin dambe habeenkii markii la gaaro oo habeenka 3 meelood 2 meel ay dhamaato ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa waxa weeye samaa'u dunya yanzilu daas culimadu wax badan bay ka dhaheen laakiin nuzuul sida qof jara ka soo degaya anagu aan naqaano kala ma aha ilaahay baa nuzuul sameeyay buu yiri markaasuu ilaahay wuxuu naadiyaa ama malag baa soo degoonaya oo xaq ilaa ka naadinaya ama albaabadii raxmada ayuu ilaahay furayaa ilaahay wuxuu naadiyaa war ma jira qof aniga i toogaya oo aan aqbalo ma jira qof wax weydiisanaya oo aan siiyo wax uu weydiistay ma jira qof dambi dhaaf raba oo dambi dhaaf iga dalbaya oo dambigiisa aan dhaafo marka awqaada nuuca aba ku jira walaalayaal 10 kan dambe ayadoo nuuca ay tahay oo awalba ducadu sidaa ahayd haddana 10 kan dambe aad bay u sii khayr badan tahay waa in ducada la badiyo oo qof walba uu naftiisa u duceysto oo ahalkiisa u duceeyo oo muslimiinta u duceeyo oo duco walba la duceynayo walaalayaal dalkeena waa in loo duceeyaa muslimiinta waa in si caam loogu duceeyaa gaar ahaan wareerka dhibka haysta waxa weeye Soomaaliya iyo sharaf darrada nagu dhacday ilaahi khaaliq ahay inaan u tooba keeno oo aqeedadeeni saxiixayd aan u laabano oo istacaylki islaamku sheega aan u laabano oo aan ka fogaano xasadka qabyaalada casabiyada iyo kibirka xubu ri'aasada kursi doonka iyo dulmiga waxa weeye qayb la iskugu dhamaynayo ilaahay inaan uga tooba keeno maahane wax kaleeto oo inaga saari kara dhibka ma jiraan marka dalka ha loo duceeyo oo islaamka ha loo duceeyo oo nafteenu aan duceysano oo habeenadan khayrka badan aan isku soo duceyno waa habeena baraka badan oo nabigeenu amaanay calayhi salaatu wasalaam
weliba gelinka dambaa ugu sii fiican mar waxa weeye khayrka la raadiyo waqtigaas baa ugu sii fiican nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray salaad waxaa loogu jecel yahay nabi daa'uud salaadiis wa axabbu siyaami ila allahi siyaamu daa'uud soonna waxaa loogu jecel yahay soonkii nabi daa'uud wuxuu ahay habeenka barkii mid jiifta habeenka thulufkiisa u istaagi jiray suduskiisana waa jiifan jiray gelinka dambuu habeenkii salaatuleyl la imaan jiray maalinna waa soomi jiray maalinna waa afurin jiray marka waxa weeye salaadiisa aad buu ilaahay u jecel yahaa buu yidhi iyo soonkiisaba nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wa min alleyli fatahajad bih naafilatan laka casaa an yabcasaka rabbuka maqaaman maxmuuda nabigeenna calayhi salaatu wasalaam habeenkii tahajud la imaad baa la yidhi dadka salaatuleylka tukadana waxaad ogsoon tihiin dhinacoodu dhulka uma dhowa in badan ay waxa weeye macaantoodii iyo hurdadoodii bay ka tageen ilaahay dartii bay uga tageen marka layladan barakaysan oo ramadaanka lagu dhex qariyey gaar ahaan haddana 10kan dambe lagu sii qariyey oo waxa weeye bishaan 10keeda dambe in ay ku jirto aad loogu malaynayo waa inaanu walaalayaal aad u raadinaa oo aan aad u dalabnaa oo waxa weeye 10ka dambe layladan laga raadiyaa waxaa la yidhi xikmadda ramadaanka laylatulqadr loogu dhex qariyey waa in bishoo dhan la dadaalo bisha ramadaan habeen barakaysan baa lagu dhex qariyey asmaada ilaahay ismullaahi alacdam magac la yidhaahdo oo qofku hadduu ilaahay ku baryo ilaahay aqbalayo ayaa lagu dhex qariyey maalinka jumcada saacatul ijaaba la yidhaaha lagu dhex qariyey sidaa oo kaleeto addoommada ilaahay oo meel iskugu yimaad addoon mustajaabu dacwaa baa lagu dhex qariyey marka ilaahay tuugmadiisa iyo dadaalka bishaan 10ka ugu dambayda fadliga ay leedahay aad loo raadiyo ayaanu isku dardaarmaynaa ducadana aad buu ilaahay u jecel yahay dadka waxa weeye ilaahay tuuga ilaahay baa jecel ilaahay wuxuuna odhanayaa wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum ituuga waan idin aqbalayaah ilaahay waxa weeye haddii aan tuugno oon gacmaha aan u taaganno man naadaa mawlaahu laa yakhiibu qofkii yaa mawlaaya badiya yaa rabbigaygoo waa ii jeedaa ilaahuw dhibkaa iga qaad ilaahuw ii gargaar ilaahuw i caafi ilaahuw diinta ii sahal ilaahuw khaatumada ii suubi ilaahuw dembigayga ii dhaaf haddii aad gacmaha u taagato oo addoon qalbigiisa ilaahay ku daalacanayo in uu dhibaataysan yaho ilaahay u baahan yahay aad noqoto ilaahay waa ku aqbalaya subxaanahu wa tacaala dhab aan ilaahay ugu tooba keenno subxaanahu wa tacaala nabigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man lam yadcu llah yaqdab subxaanahu wa tacaala qadiba calayhi qofkaan ilaahay tuugin ilaahay baa u carooda ilaahay tuugmadiisa raadi buu ka yahay haddii aad ka tagtona ilaahay waa kuu caroonayaa marka tuugmadaada inaad mar walba addoon ilaahay noqoto oo mutadarrica oo gacmaha ilaahay u taaganaya baa la doonayaa markaad ilaahay tuugayso qibladaa la qaabilaa gacmaha kor baa loo taagtaa sidaa waxa weeye calaacalaha sidaan baa kor loogu taagaa shar markii ilaahay laga magangelayo gacanta sidaas baa loo rogaa nabigeennu nuucaaba wahaa jiray calayhi salaatu wasalaam sawdkaaga waxa weeye ru'ya iyo sumca ayaa aad looga fogaadaa ilaahay baa markaa la baryaa dadka oo dhan baa ilaahay loo baryaa owqaadda barakada badan ayaa laga faa'iidaystaa qalbigaaga la soo xaadiriyaa ducada waa lagu khushuucaa ilaahay baa loo xamdi naqaa nabiga ayaa lagu salliyaa calayhi salaatu wasalaam ilaa tuugmada markaad bilaabayso owqaadda barakaysan baa lagu aadiyaa gelinka dambea ducada la badiyaa salaatuleylka ee salaada marka laga baxo ayaa la badiyaa owqaadaha barakaysan oo dhan ducada waaba lagu dadaalaa sida maalinka carafo oo kale bisha ramadaan oo kale laylatulqadarka oo kale maalinka jumcada oo kale maxaa yeelay jumcada waxaa ku jira uu nabigu yidhi saacatun laa yuwaafiquhaa cabdun muslim saacatulijaaba la yidhaahdo oo qofku uusan waafaqin wa huwa qaa'im yusallii isagoo tukanaya salaad yas'alu allaha shay-an ilaa acdaahu iyaahu qofkii isagoo tukanayo salaad ilaahay tuuga ilaahay waa siinayaa wuxuu ilaahay weydiisto saacaddaa wanaagga badan baa ku jira gelinka dambena waa nagii hadda sheegaynay ilaahay baaba naadinaya ma jiraa qof i tuugayoon aqbalo ma jiraa qof dembi dhaaf iga raba oo dembiga aan ka magangeliyo ma jiraa qof i magangelaya oo dhibka aan ka magangeliyo marka waxa weeye ducada aadaanka iyo aqimka inta u dhaxayda oo kale waa lagu dadaalaa ducada waktigaasoo kale waa mustajaabo aad baa loo ammaanay
qofka sooman ducadiisa waa mustajaabo qofka jiran ducadiisa sidoo kaleeto waalidka ducadooda kale noo duceeya baa la yidhaahdaa dadka noocaas oo kaleeta ah oo mashaa'ikhda diinta ilaahay ku xiran oo waxa weeye mar walba ilaahay ku xiran noo duceeya baa la yidhaahdaa xalaasha in la quuto ayaa lagu dadaalaa cuntada iyo cabidda iyo dharkaba maxaa yeele waxaa jira nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka sheekeeyey nin safar dheer ku yimid oo aad u dhibaataysan oo gacmaha cirka u taaganaya oo odhanaya yaa rabbu laakiin cuntada uu cunay waa xaaraam waxa uu cabay waa xaaraam dharka oo wataa waa xaaraam waxaa lagu soo quudiye xaaraam ma cune see loo aqbalaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxa weeye sidaasoo kale haddaad ilaahay tuugto lama degdego lama yidhaahdo anigu ilaahay waa tuugay waa la aqbali waaye ducada ilaahay aad ka tuugtay wakhtigeedii iyo aqbalkeedii waa imaanayaa sugo marka walaalayaal waxaan rabnay 10 daqiiqo inaan oon isku xusuusino fadliga 10 bishan ugu dambayda ay leedahay ilaahay 10 bisha ugu dambaysa barakadeeda allahna waafajiyo laylatul qadarka allahna waafajiyo kumayaalka la xoreyna ilaahay nagu daro dalkeena dhibka iyo masaa'ibta iyo dhulliga haysta allah ka qaado muwaafaqo waxa weeye iyo amni ilaahay sharafteeni iyo islaamnimada wanaageeda allah noo soo celiyo kuwii asagoo nabad ah aan waxa weeye ku tukano ramadaankan midkiisa kaleeto asagaba aan ku dhex tukano asagoo nabadahoo wax dhibo ka jirin dhammaanteen qof walba oo macnaha asaga u laabto oo amni loogu xilan karo asaga in dib loogu wada laabto ilaahay awoodiisa ilaahay ha nooga sameeyo inta dhibka ku haydoo dhan allah naga qabto wanaagga allah tuso intii hanuun u qoran yahay intaan hanuun u qorayna dhibkooda muslimka allah ka qabto nabigeena calayhi salaatu wasalaam ummuna caaisha waxay tiri haddii layladan barakaysan aan waafaqo nabiga ilaahay maxaan ku ducaystaa markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad badisaa buu yidhi allaahumma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cannii ilaahu waxaad tahay midka cafiga jecel oo cafiga iyo cafinta jecel ilaahu cafi ilaahu dhammaanteenna cafi allaahumma innaa nas'aluka xubbak wa xubba man yuxibuk wa xubba kulla camalin yuqarribuna ilaa xubbik allaahumma dahir quluubana min kulli wasfin yubaaciduna can mushaahadatik allaahumma taqabbal salaatana allaahumma taqabbal siyaamana allaahumma taqabbal qiyaamana allaahumma ijcalna min aladiina yastamicuuna alqowl fayattabicuuna axsanah allaahumma arina alxaqa xaqan warsuqna ittibaacah wa arina albaatila baatilan warsuqna ijtinaabah mawduuceennii aan ugu magac darnay fadlu lcashri alawaakhir min ramadaan 10 bisha ramadaan ugu dambayda dadaalka la dadaalo oo khayraadka lagu dadaalo oo leylada la raadiyo iyo ducada iyo khayrka la badiyo mawduucaas caaw intaasan kusoo koobaynaa ilaahay ha nagu anfaco wallahu waliyu tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh